iyadoo dadaalla diblomaasiyadeed ay socdaan ayaa gelinkii dambe ee maanta waxaa dib u soo laabtay xiisadda dhanka marinka hormuz kadib markii ciidanka ilaalada kacaanka ee dowladda iiraan ay sabtida maanta ah ay la hadleen ama ay ku qasbeen maraakiibta qaar inay dib ay u laabtaan iyadoo 3 weerar lagu qaaday maraakiib ganacsi oo sida la sheegay isku dayay inay ka gudbaan marinka hormuz. tani waxay timid kadib markii dowladda iiraan ay ku dhawaaqday in dib loo xiray marinka iyadoo lagu eedeeyay Mareykanka inuu jibiyay heshiiskii hore ee ku saabsanaa furitaanka marinkan ama marinka hormuz iyo sababta markii horeba ka dambeysay. warbaahinta Fox News ayaa waxay daha ka qaaday in ciidamada ilaalada kacaanka ee dowladda Iiraan ay tan iyo maanta oo sabti ah 3 weerar ay ku qaadeen maraakiib ganacsi isku dayay inay marinka ay ka gudbaan kadib markii dowladda Iiraan ay sheegtay in Mareykanka uusan fulin ballanqaadkii ahaa joojinta ama hakinta go'doominta lagu hayo dekedaha dalkaasi Iiraan. warbaahinta waxaa kale ay soo xigatay xubno ka tirsan sirdoonka gobolka oo sheegay in marinka hadda si buuxda uu gacanta ugu jiro ciidanka ilaalada kacaanka ee dowladda Iiraan markii horeba way maamulayeen laakiin tan iyo dagaalka markii uu bilowday iyaga ayaa si rasmi ah gacanta ugu dhigay marinkan. maraakiib dhowr ayaa lagu qasbay marka inay dib u laabtaan oo ay fasax soo weydiistaan ciidamada ilaalada kacaanka ee dowladda Iiraan sida muuqaalada qaar iyo xiriirka ay baahiyeen mas'uuliyiinta dowladda Iiraan laga dheehan karayo. 2 markab oo kamid ah maraakiibtaasi ayaa la sheegay oo Iiraan in rasaas lagu furay kadib markii ay iska dhiga tireen amarka ciidamada ilaalada kacaanka ee dowladda Iiraan oo ahaa inay dib ay u laabtaan. telefishinka rasmiga ee dowladda Iiraan iyo wakaaladda wararka ee Tasniim ayaa sheegay ama baahiyay in maraakiibta ganacsiga aan loo ogolaan karin inay maraan marinka Hormuz haddii aysan fasax ka helin ciidanka ilaalada kacaanka ee badda ee dowladda Iiraan. sidoo kale wakaaladda AB waxay baahisay in 2 markab oo Hindiya laga leeyahay in jihadoodii ay bedeleen kadib markii doomo ay lahaayeen ciidamada ilaalada kacaanka ay rasaas ay ku fureen. weliba mid ka mid ah maraakiibtaasi waxaa la sheegay oo nooca super tangiga ah oo 2 milyan oo fuusto oo shidaal ah qaadayay inuu ka soo dhaqaaqay dhanka iyo Ciraaq. ciidamada badda Ingiriiska ayaa dhankooda waxay xaqiijiyeen in 2 doomood oo ciidamada ilaalada kacaanka ay rasaas ay ku fureen markab saliid waday balse lama sheegin in markabkaasi iyo shaqaalihiisu ay bad qabaan. laakiin wakaaladda wararka ee Reuters waxay baahisay in maraakiib kale oo ganacsi inay fariimo digniin ay heleen. muuqaalka si toos ah ayaaba loo baahiyay oo xarunta ciidamada ilaalada kacaanka ayaa barta Twitter-ka soo dhigay markab aad muddo ruux Hindi ah in ugu yaraan ama ruux Aasiyadaas ka soo jeeda oo Pakistan iyo Hindiya iyo meelaha ka soo jeeda lahjadiisa marka aad qiimeyso oo lagu leeyahay maadaama aadan helin ogolaansho waxa qasab inaad dib u laabatid haddii kale cawaaqib xumo ayaad la kulmi doontaa. isagana wuxuu leeyahay okay dib ayaan u laabanayaa. Marwa Fertility Center waxaad ka helaysaa daweynta xanuunada keena dhalmala'aanta ragga iyo dumarka. ku dooro baaritaan la hubo daweyn iyo beerista ubadka IVF oo la xiriir telefoonka shaashada kaaga muuqdo. mahadsanid. afayeenka xarunta qaatimil anbiya ee dowladda Iiraan ayaa sheegay in xakamaynta marinka Hormuz in dib loogu celiyo sidii hore isla markaana hadda ay marinkaasi ay ilaalin iyo kormeer adag ay ka hayaan ciidamada ammaanka ee dowladda Iiraan sidoo hadalka u dhigay. waxaan intaas ku daray in Iiraan ay hore ugu ogolaatay maraakiib kooban inay si nidaamsan ay marinka ay kaga gudbaan. waxaa kaloo ujeedada ka dambaysa inay sidaan ay samayso dowladda Iiraan ay tahay inay doonayaan in maraakiib military nooci doonaanba ama dalkii doonaba ha lahaade aysan ka gudbin marinka Hormuz sida hore loogu heshiiyey. dhinaca kale war cusub ayaa ka soo baxay taliska ciidamada ilaalada kacaanka. sargaal sare oo ka tirsan ciidanka ilaalada kacaanka ayaa isagoo la hadlayay warbaahinta Press TV oo dalka Iiraan laga leeyahay waxa uu shaaca uu ka qaaday dowladda Iiraan in ay samaysay gantaalo cusub oo aanan horey dagaalka loogu isticmaalin. waxa intaas uu ku daray in gantaalada qaarkoodba la sameeyeyba muddo bil gudaheed ah, yacni muddada dagaalka uu socday in xitaa gantaalo dhinaca kale la soo saarayay kuwaas oo horey aana loo arkin. waxaana uu yidhi gantaaladaasi awood uma lahan Mareykanka iyo Israa'iil in ay xitaa joojiyaan. haddii dagaalka dib loo bilaabo waxaan isticmaali doonaa gantaaladaasi cusub. waqti caadirkana dunida mar kale way yaabi doontaa. sidaasi waxaa dhahaya sargaal ka tirsan ciidamada ilaalada kacaanka ee dowladda Iiraan. wuxuu yidhi haddii dagaalka dib loo bilaabo waxa uu noqon doonaa dagaalkii dunida. sababtuna waxay tahay lakabyada ama qaybaha kala duwan ee gantaalada aan isticmaali doonno waa kuwo la hormariyay maalinba maalinta ka dambaysa. muddo bil gudaheedna waxaan soo saarnay gantaalo yacni aad u awood badan. dhinaca kalena dowladda Ruushka ayaa markii ugu horeysay waxay shaaci ka qaaday sababta rasmiga ee ka dambaysa colaadaha ka dhacaya gobolka Khaliijka.
wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda ruushka sergey lafrof wuxuu maanta oo sabti ah uu sheegay in colaadda ka taagan gacanka carbeed ay si weyn ugu xiran tahay tamarta iyo in la doonayo xakamaynta kheyraadka ama tamarta iyo marinkan ee shidaalka tirada badan ee ka gudbayo waa marinka hormuse. hadalkan wuxuu ka sheegay madasha diblomaasiyadda ee Antalya oo dalka Turkiga ah, isagoo oo sheegay in dagaalada ka socda gobolka kaliya aysan ka dhalan ujeeddo ah in ilbaxnimo la burburiyo, laakiin wuxuu yidhi waa qorshe la doonayo in lagu helo sarraynta gacanta maamuli doonta shidaalka muhiimka ah ee marinka hormus ka gudbaya. waxaana uu carabka ku adkeeyey in dhinaca dhaqaalaha gaar ahaan tamarta ay noqoto mid ka mid a sababaha ugu waaweyn ee hurinaya colaadaha casriga. marka wuxuu fariin si cad ugu sheegay dowladaha khaliijka oo wuxuu yidhi waxa lagu dagaalamayo la doonayo in la burburiyo, la doonayo in la xakameeyo, dhaqaalahooda gacanta lagu dhigo, shidaalkooda lagala wareego, marinka ay mari lahaayeen lagu dhibaataynayo waa adinka. sidaa daraaddeed ama indhaha kala fura ama ha kala furina. wasiirku wuxuu si adag u dhaliilay dalalka reer galbeedka isagoo sheegay in u diyaargarowga dagaaladan ay qayb ka ahaayeen qorshayaal ay lahaayeen kuwii hore loogu yeeri jiray siduu hadalka u dhigay shuraakada reer galbeedka. waxaan intaasuu ku daray Moscow inay marar badan ay u soo jeedisay hindisayaal lagu dhisayo nidaam amni oo ku salaysan mabda'a amniga wadajirka ah ee aan la kala qaybin, balse wuxuu yidhi hindisayaashaasi dowlado badan way diideen. adigu maxay kula tahay? aragtidaadana la wadaag, like sar muuqaalka la wadaag saaxiibadaada. waad mahadsan tahay.